jirto bal maanta aan xusuusana ayay yiraahdeen qof walba shaqo uu ka run sheegay ilaahay dartii uu u qabtay kii hore markii wuxuu yiri warniman yahow anigu waalid baan lahaa hooyo aabbo waayeel ah anaa habeenkii afkooda caano ku siin jiray maalin baxoolihiiba ila fogaadeen roob baa yimid waan soo daahay hortay ayay seexdeen markii aan u soo lisay ee aan u imid hooyo aabbo way iga seexdeen aad baan u murgay buu yiri markaan murgay ayaa ilmihii yaryaraana farqi haystaan aabacaanaha nasi aabbo ileeyihiin islaantii xataa waatana wax ma cunin anigu waan gaajeesnahay laakiin hooyo aabbo waa inaan hormariyaa caaday ii ahayd waan diiday inaan qof kala siiyo waan taagnaa buu yiri waa cishihii ogow ilaa iyo goormuu taagan yahay salaada subax waa 10 saac taqriiban inta muxuu qudaraynayaa bal armay soo kacay markay isgadiyaanba talo ma soo kaceen ad caanaha afka ugu qabatidee ma soo kicin suu u sugayay ilmihii u ooyeen ilmihii waa seexdeen gaajay ku seexdeen hooyo aabban sugayay subax markay soo kaceen ayaan siiyay ilaahow haddaan arrinka adiga dartaa u qabtay yaa aan kugu raali gelinay ilaahow dhagaxa naga fayd kurbadii hayse eeg dhagaxii baa qaadmay oo fayday allah waa daawo soo maaha kii kale wuxuu yiri gabar baan jeclaa ilmo adeer aan nahay gabadhii marka gabar qurxoon way ahayd waayihii baa qabtay markii waayuhu qabtay ayay ii timid ilmo adeer baan anna waan jeclaa markaasay tiri walaalo waxaan rabaa inaad lacag ideemisid aad isiisid imisa 120 diinaar ninkii markii wuxuu yiri ilaa gabadhii way diiday gabar sharaf leh ahayd way laabatay maalinka lacagtii halkaas ay ku weyday kadib maxaa dhacay waayihii baa gabadhii ku cuslaaday bilooyin kadib bay haddana tiri meel kale aad aadid ma lahe bal isaga tag walaalka wiilkii ilma adeerka aad ahayd way u timi wali go'aankiisa halkii buu taagan yahay way ogolaatay gurigii baa la isla galay dharkii markii la iska dhigay ee uu makansaday ninkii ayaa waxay tiri walaalow ilaahay ka baqo lacagtan way haysataa ilaahay ka baqo khaatimka ha ku furin ilaa xaqiisa maahane xaqiisa ku fur khaatimka xaq daraha ku furin ilaahay ka baq markii sida ay tiri gabadhu daacad bay ahayd ilaahay baa qalbigiisa bardan wa salaaman ala ibraahim ka yeelay waa loo dajiyay wuu soo degay dharkii buu xidhay gabadhii buu yiri dharkaaga xiro lacagtana qaado ilaahow haddaan wuxuuna yiri maalinka iga kulayl badnaa waan faruuri qaniinsanaa buu yiri yaa ina ceelka ka dhaansado laakiin ilaahay dartiibaan maalinka anoo ooman u noqday runtii soo ma garan inaan xaaraan ku haraad baxo waan diiday ilaahow haddaan dartaa u sameeyay arrinka ilaahow wuxuu yiri dhagaxa inaga fayd kurbadii eeg ninkan amalkiisa ilaahay dartiib u qabtay dhagaxii waa faydmay laakiin lagama bixi karo kii u dambeeyayna waa kan wallahi kulli arrimahaas oo dhan way ina wada haystaan ummadaha siday ugu daawoobeen inaan ugu daawowna rabnaa kii kale wuxuu yiri shaqaalu ahaa beeru lahaa xoolu lahaa shaqaalu shaqaalaysiiyay rasuulkan wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam shaqaalaha qof walbo shaqaalaysiiya ajirkiisa ha siiyo ka hor inta aanu dhididkiisa angegin shaqadii markii la dhameeyay ayuu joornaatigii u qaybiyay dadkii nin baa diido wuxuu yiri war aniga dadkan ku shaqo maahi hawl ka weyn baa qabtay ii kordhi lacagta wuxuu yiri kii kale isku mid baad ahaydeen lacagta qaado wuu diiday wuxuu yiri maalinka qiyaama ayaynu xisaabtamayna sidii buu uga tagay lacagtii ninkii reer magaalo ahaayeen nin mu'min uu ahaaye ma uunan dayicin mana uunan qaadanin tiibuu ku shaqeeyay oo ku rogrogay aribu ugu gaday ninkii waa maqan yahay sanooyin aribuu ku gaday haddana arigii baa batay loobuu ku gaday way bateen geel buu ku gaday shaqaalu markii dambe ugu qabtay magaalada banaankeeda ilaa xoolihii waa bateen ayuu xoolihii u geeyay ninkii baa waayuhu cusleeyay wuu soo noqday markii jeebkiisii uu martay ninkii buu soo raadiyay wuu soo helay war ma xusuusataa maya wadniyo ninkii waagii wax ku qabtay ee aad lacagta u diiday ayaan ahaa ee walaalow lacagtii baan u baahnahay nakeen buu yiri khayr Allah ku siiye wuu soo baxay buurtii buu saaray markaas wuxuu yiri xoolaha ma aragtaa geela looda ariga fardaha ma aragtaa kuwaas oo dhan adiga iskale wuxuu yiri maalinkiina niyahow waad ii diiday xoolahaygi maantana waa igu jeesaysaa war xoolahaygi isii kisti yarayd wuxuu yiri kistaadii ayaan ku rogrogay ilaahay ku barakeeyay xoolaha qaado ninkii muxuu sameeyay xoolihii buu gees intuu ka maray kulli wuu wada qaatay hal neef uma wana reebin idinku ma yeeli lahaydeen
برباد كسين لهايدن صوماها نينكي وحو يري هدان إلهي درتي سيدا أو يلي أو أن أمانة أقوتي إلهو نقاقاد سيدي بعد دقيحي لوغا قادي أو أي كسو بحين إلهي كبت باديي أنه وحان هو مانت إذين شيغيا أنه كان بقادي حديثك حداد حنون سنتهين حداد مروغي سنتهين حداد ولع سنتهين haddii amaan darro idin hayso haddii colaad idin hayso gaajo idin hayso wax walbo murugo idin haya xusuusta oo raadiya amal ilaahay dartii aad u qabateen ilaahayna ugu tawassula ilaahu amalka hadaanu darta u qabanay ilaahu waxa naga shaafi ilaahu waxa nagu sii dhaha wallahi wad helaysan maxaa ka horeysa daawada layna siiyay in aan wax walbo aan qabanayna aan itqaanino aan sugno ilaahay dartii aan u qabanno war balanta ma qaadnay بلنتا مقادينا أفي أدين وحن قبنينا إلهي درتي ما قبنينا مهما لينا عايو مهما وحلينا قشيغو الله يدن بركيو الله يدن بركيو قرنك الله ينودسو من مدينة الله سوء عليو وذجركين الله سوء عليو إنه قد نسكو قلبي الله ينقيلو إلهي وحن كبر يا ددك ماركاي دي نقا فكرة دعاه فكرة دودي نقد وانتهي إلهي وحن كبر يا قلبي إنه إلهي ونظيفيو قلبك إنه إلهي ونظيفيه وواسعيه إنه إلهي سوحنونيو إلهي وحن كبري إنه أردن يرئي وين دل إدبت سومالها ديننا أنت إنه سكولو قدنا هاي قلبي قفك لي الله نجيله قولي ديركد الله نجيله علاد إلهي نبض هاي نوجو بدله أبارت آرن هاي نوجو بدله عذر رضع عافمد هاي نوجو بدله إلهي وحن كبري برساماتك الله نجسو عليه برساماتك الله نجسو عليه الدونك إلهي نجم صار إلا يسقور على نجا أهمهني هدينه كتجنا الدونك وينه كتجي جوردوي مع الحبيب جنة فردوس الله يسويك هاي جيو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.